taasi waxay keentay marka in wixii ay noqdaan wax daafuran waxay keentay in dhaqaalihii ay lahaayeen ganacsatada shaqada qabanaysa ay helaan waxay keentay in tayadii raashinku kor u kaco waxyaabo badan oo ka mid ah waddanka horu socodkiisa qaybaha ugu muhiimsan ah ayaa meesha ka socda marka aad bay ugu mahadsan wasaaradda maaliyadda iyo inta kale oo ku howlan sida uu wasiirada iga horreeya sheegeenna waxa waaye ciidanka waa cududda aan haysano waa xoogga aan haysano waa garabka aan haysano waxa waaye waa ayaga ugu mudan in la daryeelo ayaga ugu mudan heer walba oo yihiin ciidamada heer walba oo yihiin ciidamada qalabka sida nooc kasta oo yihiin ayaga ugu mudan in la daryeelo ayaga ugu mudan in wax tayaysan la siiyo ayaga ugu mudan dhaqaalaha badan in lagu bixiyo karaamada iyo sharafta ugu badan ayaga iska leh taasina waxa weeye waa wax aan ku celcelinayno oo aan aaminsannahay inay yihiin dadka ugu mudan taa markaan ka soo gudbo waxaa hadal maalmahan ka furan yahay aanan rabaa in hoos loo fiiriyo raashinka la bixinayo caafimaadkiisa dhakhaatiirtu waxay leeyihiin masagada iyo galleyda iyo digirta noo soo baxa uga caafimaad badan bariiska iyo baastada ayaga ka caafimaad badan dalagii dalkeenna waana dalagii dalkeenna waxay kor u dhigayaan beeralayda iyo dhaqaalaha wax badan bay noo badbaadinayaan ganacsatada iyo guud ahaan annagu bal inaan dib u fiirino maxaan ciidanka in la siiyo galley iyo masago iyo maxaa la dhahaa iyo dadka qaarna haruuray u yaqaaniin haruurku waa isla masagada waa la isfahmaa hadda aad la soo dhex gala Soomaalidu isku karisay noqotaa hadda waa la iswada fahmaya marka inaan digirta cunno anoo haddeer ma ogi inay ammaan tahay iyo say tahay waxaan soor iyo waxaan cunaa cambuulo un baan cunaa wax ka baxsan bariis iyo baasta goor aan cuno garamayo markii meel lagu martiqaado soorta la waay un baan cunaa caafimaad baan ku haystaa sharaf baan ku haystaa marka waxay ila tahay ciidanka xoog baa u kori lahaa iyo awood waxaa la soo xaqiijiyay ciidamada diriskeenna ah kulli inay dalaga ay cunaan waxa ka soo baxa meesha annagu bariis iyo baasta laga yaabo inaan meel foof ka keenno arrintaana dib ha loogu laabto waxaa mar labaad mar saddexaad ku celinayaa wax alla wixii mudnaan iyo karaamo iyo sharafa ciidankeena mudan waana si kasta inaan ugu dadaalno wasiirada iga horreeyana waxyaabo badan ka hadlay mar raba inaan sii dheeraado aadan idin salaamaya assalaamu calaykum